Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada inagala xiriirtay waxaan rabaa inaan su-aalo dhowr oo ka jawaabo insha allah su-aalahaasi iyo weliba barnaamijkeennii ila tali ayaan kasoo xushay barnaamijka ila tali su-aalo badan ayaa lasoo tuuray oo dadka isoo weydiinayaan oo ila tali ah so insha allah waqtiga ayaa iska yar hase yeeshee waad helaysaan qof walba wixiisa su-aashiisa waan usoo diri doonaa halkan ayaan kasoo sheegi doonaa insha allah taa ha loola socdo insha allah wax si kale ayaa loo fahmin okay guys how mahadsanid hase yeeshee isku day inaad subscribe inoo saarto sidoo kalena alarmiga aad furato kadibna all aad dhahdo intaa markaad samaysay commenti inaad ka bixiso isku day halkan waa Shaaciye one show so insha allah barnaamijka ila tali waxaan ku bilaabayaa qof ka mid ah daawadayaasha wuxuu yidhi asalaamu calaykum ila tali waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan ahay arday waxaan jeclaystay in aan ku weydiiyo green card caadiga aan ahayn loteriga waxaa USA jooga adeerkayga ma dalban karaa green card anoo lawyer laka shanayo account statement balance fiican ku jira aan haysto sharci ahaan aan wadanka kusoo galo ka waran arrinkaasi kaasi waa cabdiraxmaan cusmaan cabdiraxmaan horta green cardka adoo muqdisho jooga waa dalban kartaa laakiin dhibka jira waxay tahay in lagu doodo ayay noqonaysaa qof uu kuu doodo adeerkaagii ama walaalkaagii ama walaasha ama waalidkaagii midkood inay kuu doodaan weeyaan laakiin haddii aad qaab shaqo ahaan ku imaanayso ama qaab waxbarasho ku imaanaysana waa in marka hore haddii aad waxbarasho ku imaanaysid waxbarashada iskuol aad ablay garaysid iskuolka uu ku ogolaado weeyaan marka kadib ayaad haddana green card dalban kartaa ama visa dalban kartaa shaqo haddaad ablay garaynaysidna oo aad shaqo ahaan ku imaanaysidna saas oo kale ayadana marka hore waa inaad shaqo aad hesho kadib aad green card abalay garayso ayay noqonaysaa haddii kalena waa in adeerkaa ama waalidkaagii midkood oo halkan jooga ay kuu doodaan taasaa marka kuu fududayn kartaa inaad maraykanka aad timaado okay ninkan wuxuu dhahay magaciiga waa Ismaaciil Dalmar waxaan ka mid ahay guulaystayaasha DB Lotteryga 2022 interview location waxaan ka dhigtay Addis Ababa present adresska haddana waa Soomaaliya ayuu ii yahay marka interviewga ma Addis Ababa ayaan ku maraa mise Nairobi miyaan ku maraa mise Addis Ababa maadaama present addresskaygu yahay Soomaaliya horta present addresskaagii iyo meesha ku maraysay interviewga way kala duwan yihiin interviewga meesha DV Lottery markaad apply garaysay lagu soo xushay kadibna DS 260ga markaad apply garaynaysay meesha aad xulatay ayay noqonaysaa saa ii sheegteen Addis Ababa waaye so meesha aad ku mari doonto Addis Ababa waaye meel kale ma dalban kartid assalaamu calaykum walaal sida videogii ugu dambeeyey ku sheegtay baasboor la-aan ayaan ku xaraystay DV Lotteryga ugu dambeeyey marka ma ku jiraan dadka DV Lotteryga ugu dambeeyey ka brosiiska gareeyey baasboor la-aanta ilaa hadda waxda USCIS ta maysan caddaynin programkaasi maxkamadda way amartay hase yeeshee weli ayaga dhankoodii in laga guulaystay islamarkaana ay bilaabayaan brosiiska may sheegin hase yeeshee haddii la dhahana waa la bilaabayaa badna ma noqon doonta ayaan filayaa gadaal looma laaban doono wixii hadda kadib ayay noqonayaan dhanka kale assalaamu calaykum walaal qaali waxaan kaa codsanaya aadan mooha waaye waxaan kaa codsanay inaad qoraalkayga iga soo jawaabtid waxaan rabaa in aan ku weydiiyo su-aal waxaan rabaa qof France jooga oo bilaa sharciga adeerkiisa oo Canada jooga ma kaxayn karaa oo Canada ma geyn karaa hadduu geyn karo wadda noocay loo mari karaa mahadsanid insha allah brother talada ugu fiican aan ku siinaya waxay tahay Canada maadaama aad joogtid waxaan ka wadaa France maadaama aad joogtid adeerkaagana uu Canada joogo waxaan dhihi lahaa adeerkaagii waxda lottery looyarada ha u tago looyarada marka u tago kadibna ha kala kaashado
qaabka lagu keeni karo oo uga fudud soo looyarada markaasi information buuxa ayay siinayaan adeerkaagii kadibna programka halkaasi ayuu ka sii fududaan doonaa insha allah. faatix maxamed wuxuu dhahay ila tali walaal shaaciye marka hore aad baan ku salaamay salaamullahi brother. marka xigta waxaan watay su-aal taa oo ah haddii alle idmo oo aan ku guuleysto dv loteriga oo aan buuxin rabno foomka ds 260ga ka waran haddii aan haysan adress maraykanka oo qof ii jooga aanan aqoon macaqabad bay iigu noqonaysaa in ay hawshaydii ii socoto ilaa iyo interviewga insha allah ila tali waan okay brother waa mahadsan tahay. insha allah markaad xareynaysid horta caqabad kuguma noqon karto hase yeeshee sababta horta loo rabo adresskaas oo kale ama qof at least qof inaa heshid loo rabo waxay tahay markaa maraykanka imaanaysid ilaa waxaa u baahan tahay meel aad ku degtid oo hawshaadii aad ka fulisid. waxaad u baahan tahay meel sharciyadaadii lagugu soo diro oo maaragtay dowladda ay kaala soo xiriirto ilaan sharciye in lagu soo diro warqada inaad buuxisid hadhow sharcigii magaalada aad degaysay sharcigiisa wixii dhan ayaa loo baahan yahay. soo saas darteed ayaa marka loo rabaa in aad hesho programkaasi ama maxaa la yidhaahdaa adress inaa heshid ama qof inaa heshid muhiimadda ugu weyn saas waay. laakiin inaa imaato hotel waa degi kartaa hotelna habeenkii $200 waay ma awoodi karti. so waxaa u baahan tahay in aad imaato qof airbortka kaa soo qaado meel aad ku degtid meel lagala soo xiriiro oo wanaagsan inaad haysatid waaye. marka okay insha allah barnaamijkeeni ila tali halkaas ayaan kusoo afmeyreynaa. barnaamijyo badan oo dad badan aan idhaahday oo na soo weydiiyey su-aalo badan oo ila taliya ayaa jira insha allah qof walba wixiisa waan ka jawaabi doonaa ila taligiisa waan samayn doonaa ha la ii dulqaato insha allah. thank you very much. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.